gudoomiye dalku waxay saddex marayaan gudoomiyuu arrimo deegaanada baa lagu bedelay ka soo kordhay gobolka Togdheer oo dadweynaha aad u dhex maraya hadalhayntaasi maxaa arrinka ka jira waa qaniin ku sheegayo qofka waqtigiisu markuu ka dhamaado ayuun baa xilka laga qaaday ama ha wanaagsanaada ama ha xumaade marka adigu waqtigii ilaahay ugu tala galay ayaa dhamaaday waqtigu madaxweynuhu magacaabay ku mahadsan yahay waqtina uu iga qaaday xagga saran wax laga maamulaayo waa gudoomiye maxamed cabdullaahi nafaqo ku soo dhawahay Cable TV gudoomiye muddo 3 sano barsaab ku xigmad soo ahayd 3 sano kalena barsaab soo ahayd muddada magaalada Burcad barsaab ka ahayd dadweynaha magaalada Burco maxaa wax qabada ugu weyn aad u qabatay muddada kaga tirsan bismillaahir rahmaanir rahiim kullay wax qabadkaygii iyo wixii aan muddada aan joogay 6 sano wareejintii baan ku sheegay wadiga duubay laakiin ilaahay idankii iyadoo faahfaahsan mar baan hadii la ka dhigo si fiican uga hadli doonaa way gudoomiye dadweynaha magaalada Burco waxay leeyihiin wad barsaabka ugu wax qabad ka badnaa barsaab dhexdhexaad ahayd siyaasadii xisbiga kulmiye ma uu inta weyday inaad barsaab dhexdhexaad noqoto aad xisbiga kulmiye dhinaca saar weyd way tahay imika ka hadli maayo maanta xibirajin baynu ku jirnaa wixii dambe faahfaahina dib baan ka sheegay insha Allah way gudoomiye mid kale ku raacay gudoomiye dalku waxay saddex marayaan gudoomiyuu arrimo deegaanada baa lagu bedelay ka soo kordhay gobolka Togdheer oo dadweynaha aad u dhex maraya hadalhayntaasi maxaa arrinka ka jira waxba kama jiraan gobolku waa nabad deegaanada ay wax ka soo kordheen ma jiro xaaladii ugu adkaaba gobolka soo maray ilaahay waa nagu asturay way dhamaatay iminka gudoomiyaha waxaan ku wareejiyay gobol mid ah nabadgelyo ah barwaaqo ah caafimaad ah oo dadku ay fiyo yihiin wixii horena ay dhamaadeen oo cusub baan ku wareejiyay Burco cusub iyo gobol cusub ayaan ku wareejiyay way gudoomiye maxaa degdeg keenay in state-ka maalmo dhow ay naga xigaan in durdaba xafladii la soo dhaweeyo madaxweynuhuna aynu soo dhaweeyo xilka qaadista waa qaniin ku sheegayo qofka waqtigiisu markuu ka dhamaado ayuun baa xilka laga qaaday ama ha wanaagsanaada ama ha xumaade marka adigu waqtigii ilaahay ugu tala galay ayaa dhamaaday waqtigu madaxweynuhu magacaabay ku mahadsan yahay waqtina uu iga qaaday xagga saran wax laga maamulaayo way saashu gudoomiye hadaan ku weydiiyo dadweynaha magaalada Burco maanta war ka tagtay maxaad iyaga ugu baaqays si faahfaahsan baan ugu hadlayaa hadii ilaahay ka dhigo warbixinta aan u gudbiyay message-ka u gudbiyayna waxay wareejinteeda ku jirtay laakiin si faahfaahsan wax qabadkaygii iyo wixii aan qabtay iyo bulshada wixii aan kula dardaarmayo hadii ilaahay ka dhigo iyo siyaasadda waxay tahay maanta taagan intaba waan ka hadlaya markaan ka hadlaya Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah Cable TV Burco.